waxaa jirtay koox dad ah oo ku nool magaalada Tokyo ee dalka Japan kuwaas oo ka qayb galay tijaabada la xiriirta saameynta tamarta iyo fikirka wanaagsan ee ku leeyihiin biyaha. Tijaabadan waxaa hogaaminayay saynisyahanka Masaru Emoto. Dadkani waxay doonayeen inay arkaan haddii ereyadooda iyo shucuurtooda ay si dhab ah u bedeli karto qaab dhismeedka kristalka biyaha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. tijaabooyinkan isbeddelka biyaha waxaa sameeyay cilmi baadho reer Japan ah oo lagu magacaabo Masaru Emoto. cilmi baadhistiisa wuxuu ku sheegay in biyaha ay bedelaan qaab dhismeedka kristalka ay ka samaysan yihiin iyagoo ku muujinaya tamarta ama isku bedelaya tamarta shucuurta iyo fariimaha kolba loo diro ama lagu akhriyo. Daawade, haddii biyuhu ay filcilin ka sameeyaan ereyada iyo tamarta, ma laga yaabaa inay saameyn ku yeeshaan noolayaasha kale sida dhirta iyo xayawaanada xataa annaga? Siday biyuhu uga filciliyaan ereyada wanaagsan, sidoo kale siday uga filciliyaan ereyada taban? Filcilinta marka lagu akhriyo Qur'aanka Kariimka ah iyo filcilinta marka lagu daaro heesaha ama muusikada ayaynu isla eegi doonaa sidee qaabka ay biyuhu isku bedelaan. Dabcan, saynisyahanku waxa uu sheegay in biyuhu ay leeyihiin awood ay uga filciliyaan fariimaha hadallada ama tamarta ku hareeraysan. Si ay u caddaatana waxa uu sameeyay cilmi baadhisyo ama tijaabooyin biyaha fariimo loogu diro. Tusaale, wuxuu biyo ku shubay weelal kala duwan, kadibna wuxuu u diray ama lagu akhriyay fariimo kala duwan sida ereyo jacayl ah, mahadnaq iyo ereyo u dhigma aflagaada sida doqon ama nacas ayaa tahay ama waad idilaysaan. Sidoo kale, isbarbardhigga waxaa kaloo loo isticmaalay hadallo taban sida hadallo nacayb ah ama xaasidnimo. Sidoo kale, waxa uu ku tijaabiyay Qur'aanka iyo ereyada diimaha. Kadib biyihii waa la qaboojiyay ilaa ay noqdeen baraf, kadibna waxa uu ku eegay microscope. waxa uu ogaaday in biyaha lagu sheegay ereyada wanaagsan ay sameeyeen qaabab qurux badan oo kristal ah ama kristal aad u qurux badan ama nooc aad u qurux badan sida ubaxyo iyo xididyo qurux badan. halka biyaha lagu akhriyay ama lagu sheegay ama laga dul dhawaaqay iyagoo meel yaala ereyo taban ay sameeyeen qaabab aan hagaagsanayn ama kuwa aan nidaam lahayn, dibna u geysanaya jirka bini'aadamka. saamaynta muusikada biyaha ay ku saameynayso dabcan waa frequency iyo vibration-ka. barnaamijkan oo kale waxaynu kaga hadli doonaa barnaamij kale si ballaarana waan u qaadaa dhigi doonaa heer aad ogaatay in muusikada ama heesta aad dhegeysataa kugu sababi karto xanuun. aan u soo noqono barnaamijkeena wuxuu biyo ku shiday music heeso classic ah ama kuwa aan buuq badnayn. waxa uu sheegay in muusikada degan ay abuurtay qaabab kristal ah oo hoos ku habaysan, halka muusikada buuqa leh ee rockska loo yaqaan ama raabka ay sababtay qaabab aan nidaam lahayn. Maanta wuxuu aaminsanaa waa saynisyahanke in biyuhu ay leeyihiin nooc ka mid ah xasuusta, taasoo micnaheedu yahay hadalka wanaagsan uu si togan u saameyn karo biyaha, hadalka xun uu si taban u saameyn karo. waxaa jirtay koox dad ah oo ku nool magaalada Tokyo ee dalka Japan kuwaas oo ka qayb galay tijaabada la xiriirta saameynta tamarta iyo fikirka wanaagsan ee ku leeyihiin biyaha. Tijaabadan waxaa hogaaminayay saynisyahanka Masaru Emoto. Dadkani waxay doonayeen inay arkaan haddii ereyadooda iyo shucuurtooda ay si dhab ah u bedeli karto qaab dhismeedka kristalka biyaha. Tijaabada waxaa u dhacday sidan: biyo ayaa la diyaariyay, dabcan laga soo qaaday magaalada. biyahaas waxaa lagu shubay weelal kala duwan. fariimaha biyaha loo diray qaar ka mid ah weelasha biyaha. dadkii waxay ku yidhaahdeen ereyo wanaagsan, jacayl, nabad iyo mahadnaq. qaar kalena weelasha waxaa loo adeegsaday ereyo taban sida xumaan iyo fawdo. weelasha qaarkood waxaa loo shiday music degan oo classic ah, halka weelasha qaarkoodna lagu shiday music buuq iyo qaab daran, halka qaarkoodna lagu shiday Qur'aan. dabcan markii intaa oo dhan la sameeyay, microscope ayaa la soo qaaday, waxaa la eegay natiijadii waxay u dhacday sidan: weelasha ereyada wanaagsan loo sheegay ama lagu dul akhriyay waxaa lagu arkay kristal aad u qurux badan oo u muuqda mid si fiican isugu xidhan. dadkii arkay waxaa ka yaabisay sida muuqaalka biyuhu ay u bedeleen dabcan ereyo kaliya oo wanaagsan oo loo sheegay. weelashii ereyada xun lagu akhriyay ama loo sheegayna kristalkoodu wuxuu noqday mid aan nidaamsanayn oo burbur badan leh iyo qaabab isku dhexyaaca. muusikadii deganeyd iyada lafteedu waxay noqotay qaabab kristal ah oo cajiib ah oo aad u iskugu toosan, halka biyaha muusikadii xanaaqa leh ama maaragtay rock music loo yaqaanay ama aan habeysnayn ay muujiyeen qaabab burburay. dadka ka qayb galay tijaabadan waxay sheegeen inay markay arkeen sida biyaha ay u bedeleen qaabkooda ay noloshooda wax ka bedelaan. gaar ahaan qof ka mid ah waxa uu sheegay inuu mar walba ka fikiri jiray waxyaabo taban, taasoo keentay inuu mar walba murug dareemo. kadib tijaabadan wuxuu bartay muhiimadda ereyada wanaagsan iyo fikirka togan uu leeyahay. waxa uuna yidhi, haddii biyaha ay ka jawaabaan ereyada ay bedelayaan ereyada, maxaa loo malaynayaa dad aan hadallo wanaagsan kula hadalno, qalbiga qofka kale ereyo aan ku dhaho sidee u saameyn karaan ama u bedeli karaan? ma malaysan karo. dabcan qof kale oo ka mid ah kooxdan ayaa horay u aaminay fikraddan ayaa ka yaabiyey ama ay ka yaabisay natiijadan. waxa ay biloween
inay biyaha cabbaan ay ku dul akhriyaan ducada iyo kelmado wanaagsan. Waxa uu yidhi noloshayda tamar wanaagsan ayaa soo gashay, xaaladaydana si dhab ah bay isku beddeshay. Hadda si dhab ah waa sababta biyaha taxliisha ama qur'aanka loogu akhriyo oo shifo u noqdaan. Eebbe wuxuu yidhi waxaa soo dejinaynaa qur'aanka isagoo caafimaad iyo naxariis u ah mu'miniinta. Suuratul Isra aayadda 28 waxaan aaminsanahay in ducada iyo qur'aanka iyo ereyada wanaagsan ee Allah lagu xuso ay saamayn togan ku leeyihiin ama ku yeelan karaan biyaha xataa bay'ada xataa adduunka dhan. Tani waxay xiriir la leedahay cilmi baarista Emoto taasoo muujinaysa in ereyada wanaagsan ay bedelaan qaabka kristalka biyaha oo ay ka dhigaan kuwo qurux badan oo nidaamsan. Waa nasiib xumo maanta inaan isbarbar dhigno qur'aanka iyo tijaabo dhawaan la sameeyay. Ay kalsoonidaadu badato marka lagula soo hadal qaado tijaabadan science experimentigan lagu tuso kadib qur'aanka lagu dambaysiiyo daliil ahaan. Dabcan markaad biyo ku akhrido qur'aanka iyo ducada suuratul Faatiha iyo Aayatul Kursiga dabcan waxay biyahaasi noqonayaan kuwo baraka leh oo caafimaad keena. Cilmi waxaan wada ognahay dadkeena in marka biyaha qur'aanka lagu akhriyo kadib bukaanka la siiyo ay dadku intooda badan caafimaadaan. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waa kiilaha kalimatu tayyiba sadaqa, kalimada wanaagsan waa sadaqo. marka qofka muslimka ahi uu ereyo wanaagsan isticmaalo waxay keenaysaa barako iyo saameyn wanaagsan taasoo la jaan qaadi karta cilmi baarista biyaha ee Emoto uu sameeyay.